maamulka Somaliland wuxuu noqday tusbax furtay mana jirto hal deegaan oo maanta la dhihi karo ama hal gobol oo la dhihi karo Muuse Biixi ayaa si toos ah maanta gacanta ugu hayo oo maamulka Somaliland ay shacabka iyo mas'uuliyiinta iyo ganacsatada halka jooga ay raalli ku yihiin maanta lama jirto hal deegaan xataa hal degmo lama dhihi karo kulan waxaan wanaagsan saaxiibayaal idil ahaantiima meel walba joogtaan ku soo dhawaada wararkii u dambeeyay ee Soomaaliya qodobada wararkeena ku maqli doontaan waxa kamid ah maamulka Somaliland ayaa dhaqdhaqaaqyo cusub ka bilaabay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool halkaasi oo uu ka furmayo shirka ka tashiga beelaha SCC Somaliland ayaa ciidamo hor leh soo dhoobtay nawaaxiga Laascaanood halkaasi oo markii hore ay ku sugnaayeen ciidamo kooban waxaana ujeedka lagu sheegay xoojinta ammaanka guud ee magaalada Laascaanood Muuse Biixi ayaana qorsheynaya in uu weerar ku qaado garaadada ku sugan Laascaanood isagoo oo doonaya inuu fashiliyo shirka ka dhacayo Laascaanood waxa uu hadda wadaa dadaalkii ugu dambeeyay ee uu guluf dagaal ugu qaadi lahaa magaalada Laascaanood dhaqdhaqaaqan ayaa ku soo aadaya xilli lagu wado in uu maalmaha soo socda Laascaanood ka furmo shirka ka tashiga beelaha SCC Somaliland ayaa hore u sheegtay in ay sugayso amniga shirweynaha beelaha gobolka ay Laascaanood ku yeelanayaan iyo ka guud ee magaalada iyada oo banaanka u soo baxeen in garaadada shirkan ka qaybgalaya ay wataan ciidamo badan oo hubaysan dhinaca kale jabhada cusub oo ka soo horjeeda maamulka Somaliland ayaa looga dhawaaqay gobolka Awdal jabhadan oo lagu magacaabo Cawaale ayaa soo bandhigtay cudud ciidan iyada oo fariimo hanjabaada hawada u soo marisay Muuse Biixi iyo maamulka SNM waxa ayna sheegeen in hadda wixii ka dambeeya gobolka Awdal iyaguna bilaabayaan sidii aayahooda iyo mustaqbalka gobolkaasi ay uga tashan lahaayeen isla markaana Soomaaliyeyn ay wax ula qaybsan lahaayeen maamulka Somaliland oo in ka badan 30 sano raadinaya madax banaani iyo ictiraaf ayaa u muuqda mid shacabkiisa ay jabiyeen xayndaabka iyo kala goynta midnimada Soomaaliya xilli mucaaradka Somaliland ay qireen in ay burburtay Somaliland kuna burburtay gacanta madaxweyne Muuse Biixi qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan waxaana barnaamijka qaybiga ah stuudiyaha ugu sugan saaxiibkii waxaan oo soo indheeyay xaladihii u dambeeyay ee dhaqdhaqaaqyada ka soo cusboonaaday magaalada Laascaanood waxaan ugu horeyn ku soo dhawow barnaamijka bal waxaad inooga warantaa xaaladaha u dambeeyay iyo dhaqdhaqaaqyada cusub ay Somaliland ka wado gudaha magaalada Laascaanood iyo duleedkeedaba aad iyo aad ba mahadsan tahay subaxnimadii hore saaka ayaa lagu waabariistay magaalada Laascaanood ciidamo aad u tiro badan iyo waliba guluf colaadeed oo ay soo qaadeen maamulka Somaliland ciidamo la sheegay inay ka soo ruqansteen dhanka magaalada Yub ee gobolka sanaag ayaana haatan waxay soo gaadheen duleedka magaalada Laascaanood halkaasi oo laga cabsi qabo in isku horimaad dagaal uu ka qarxo magaalada Laascaanood ay ku sugan yihiin dhammaanba garaadiyada beesha dhulbaante oo la rabay inay gabi ahaanba shir looga tashanayo aayaha iyo mustaqbalka gobolada ACC uu ka dhici doono maalmaha nagu soo aadan shirkan ayaan ogeyn horaantii qabanqaabadiisa in ay jireen dibadbaxyo waaweyn oo dadku ay ku cabanayaan ama ay kaga cabanayaan dhibaatooyinkii iyo tacadiyadii ciidamada maamulka Somaliland ay ka geysteen Laascaanood guud ahaanba gobolada ACC waxaadna moodaa in xaaladda haatan ay tahay mid aad u cakaran iyadoo waliba ee garaadyada ay ku baaqayaan sidii gabi ahaanba loo damin lahaa xiisada sidoo kale tana shirkan uu madaxweyne Muuse Biixi rabo inuu carqaladiyo gabi ahaanba arintaasi ay dhalin karto xaaladaad u adag ee dhanka kale waxa iyadna magaalada ka jira diyaar garow culus oo ay wadaan ciidamada la magac baxay badbaadada gobolada ACC oo ayaga laftirkooda xidhay daafaha iyo waliba dariiqyada ama wadooyinka soo gala magaalada Laascaanood kuwaasoo gabi ahaanba inta badan amnigooda la sugay ayadoo waliba la arkayay taliyaha ciidamadaasi xukuma oo sheegaya in amniga ay ayaga ku filan tahay sidoo kalena gabi ahaanba wax carqalada oo maamulka Soomaaliya halka ay ka geysan karo inaysan jirin maalmihii ugu dambeysay ilaa soo waxa ayadna jiray in wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Soomaaliland oo hadlay iyo waliba wasiirka warfaafinta labadoodu waxay sheegeen in aysan jirin wax shira oo ka dhici kara magaalada Laascaanood oo maamulka Soomaaliland aysan ogeyn dhinaca kale waxay ku faantameen ciidamadii soo dhaweynayay sidoo kalena amniga magaalada Laascaanood sugayay inay ahaayeen ciidamada maamulka Soomaaliland ayuu waliba sheegay baabuurta ay isticmaalayeen iyo hubka ay ciidamadaasi wateen dhammaanba inay hayeen ciidamada hubka ciidamada maamulka Somaliland iyo waliba sidoo kale dariiska ciidamada inay qabeen laakiin intuba waxa been dhahay taliyihii ku sugnaa ama watayba ciidamadaasi
oo sheegay inuu yahay taliyaha badbaadada ciidamada gobolada aan dhehe guud ahaanba ee gobolada SSC markaad fiiriso iskoorimaadkan iyo hadalladan qalafsan ee la isku marinayo hawada waa kuwa ayaga laftirkooda xaaladda sii adkeyn karo iyadoo weliba ee dhanka dowladda federaalka Soomaaliya ilaa xilligan wax tallaaba oo la taaban karo gabi ahaanba ay ka qaaday arinta iyo weliba qadiyada ka taagan gobolada ACC ilaa iyo xilligan aysan jirin Somaliland ciidamadan tirada badan ee ay ku soo dhoobayso nawaaxiga Laascaanood haddii halkaasi ay ka hortagaan ciidamada kale ee badbaadada SCC soo dhibaato kama dhalan karto sidoo kalena baaqyadii Soomaaliland loo jeedinay ahaa in xal aan xabad ahayn ay ku wajahdo rabshada ama dhibaatada ka taagan magaalada Laascaanood soo kama sii dari kartay kula tahay horta ilaysow xiisadii ka taagneyd gobolada ACC gaar ahaan magaalada Laascaanood waxay sababtay burburka maamulka Somaliland oo arintaasi ka jawaabaysana waxaad moodaa in ay haatan xal aan xabad ahayn ay weyday arinta kalita ee maanta hortaalana ay tahay inay dabaabadaheedii iyo ciidamadeedii iyo wixii hubo ay haysatay ay keento magaalada Laascaanood sifa natiijada shirkaasi ka soo bixi karto oo wada ogyahay طبعا shirkaasi waxa ka soo bixi karo waxa weeyo midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo in calanka buluuga laga taago dhammaanba gobolada ACC ee haatan ay ku midaysan yihiin garaadyadan iskugu imaaday magaalada Laascaanood iyo shirkan oo ujeedkiisaba la iska garanay waxa ka soo baxay ayuu arintaasi ka duulay waxay rabaan gabi ahaanba inay fashiliyaan shirkaasi ciidamadan la soo dhoomayna waa kuwa la rabo in lagu carqaladeeyo sidoo kale tana lagu ilaaliyo waxyaabaha shirkaasi ka soo bixi karo oo dadka dhanba ay wada og yihiin oo ay ka wada dheersan yihiin dhanka kale to baaqiyo fara badan ayaad moodaa maamulku inuu diray maamulku hanjabaad buu diray baaq buu diray oo nabadeed waxa uu dhanka kale ta diray talaabooyin waaweyn oo u muuqday intooda badan in ay fashilmeen marka arinta kalita maanta qaban karana waxa weeyo inay ciidamadaasi geeyaan oo shirkan carqaladeeyaan waana midda ciidamada maamulka Somaliland maanta ay u imaadeen duleedka magaalada Laascaanood Muuse Biixi wuxuu qorsheynayaa in uu weeraro ku qaado garaadada ku sugan gudaha Laascaanood haddii uu isku dayo isla markaana uu weerar ku qaado garaadadaasi ka tashanaya aayahooda iyo mustaqbalkooda dhibaato intee leeg ayay u keeni kartaa maamulka Somaliland iyo sidoo kale goon istaagaba horta goon istaag warkiis waa dhamaaday waxaad aragtaa in goboladii ACC go'aan goboladii kale ee qaarkood ayaga laftirkooda ay ku dhawaaqi doonaan qaarkood mar dhow inay ka go'aan maamulka Somaliland qaarkoodna ay haatan ku dhawaaqeen marka maba jirtaba haatan maamul la sheegi karo oo maanta raadinaya ictiraaf lama garanayo laakiin Muuse Biixi arinta kalita uu sameyn karo waxa weeyo inuu garaadada caadcaadsado inuu maxalli jiray magaalada Laascaanood wuxuu ka sameyn karo uu ka sameeyo ayadoo waliba taa laftirkeeda waxay qaban karto iyo waxa markaasi ka imaan kara la iska garanayo oo ciidamada ay halka ku diyaarsan yihiin oo u diyaar garoobeen dib kasta iyo waliba wax kasta oo ka imaan karo Muuse Biixi gobolada ACC-na waxaad moodaa in aayahoodii ay go'aan ka gaareen ayna jirin maanta cid mar labaad ku qasbi karto in maamulka Somaliland ay ka sii mid ahaadaan waxaad arkaysaa baaqi garaadka ahaa in gabi ahaanba 15 sano in ka badan ay ku soo noolaayeen nolosha bisada haatanna ay u dhaqaaqeen nolosha libaaxa taasi ay ka wadaan in gabi ahaanba haatan aysan jirin cid cuburin karto ama cid markaasi siyaasadooda iyo waliba deegaanadooda ay uga daba fadhiisanayaan hadalkiisina waxa ayadna ku jirtay in gobolada ACC gabi ahaanba mar dambe looga talin doonin magaalada Hargeysa go'aankaasi waa go'aan ummadda ku dhaqan goboladaas isla qaadatay mana jirto cid ka hor imaan karto dabcan dagaal ugu dhici karaa waa la isbaabin karaa waa la isxasuuqi karaa maanta Somaliland hub iyo ciidanba way haysataa wayna ka awood badan tahay dadkan shacabka ee ku shirayo gobolada ACC ayadoo waliba aan ognahay in ayaga laftirkooda ciidamo haystaan laakiin la isma barbar dhigi karo laakiin si kasto ay tahay dadkani waa dad u diyaar garoobay geeri isla markaana u diyaarsan inta ay nool yihiin inaan mar dambe gumaysi aysan ugu jirin qabiil ayaga aan ka tira badnayn waa tahay bal shirka goormuu furmayaa goortee baa la isleeyahay inuu furmo waxaa ka soo bixi kara iyo sidoo kale shirkan wixii ka soo baxaa sida ay uga falcelin doonaan maamulada Somaliland iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya oo noo soo koobay ilaa horta shirkan waxa lagu waday inuu mar hore furmo laakiin waxa jiray garaad la sugayay garaadkaasina shalayto casarkii ayuu soo gaaray magaalada Laascaanood ma jirto wax la sugayo oo dambe waxa kalita la sugayo waa inuu shirkan u furmo maalinta berita ayadoo waliba maanta aan ogeyn inay Jumco ahayd berito Sabti ah ayaana lagu wadaa shirkan gabi ahaanba in la daafro inta uu soconayo iyo waliba sidoo kale to waxa looga hadlay
codeeyo dhammaanba ajendaha shirkani inta badan waaba la isla ogyahay waxa weeye sidii goboladan loogu dhisi lahaa maamul madax bannaan isla markaana si toos u hoostegayo dowladda federaalka Soomaaliya ayna u noqon lahayeen khaatumo state-koodii hore marka ma jirto marka wax kaleeto oo haatan yani laga sugayo ama qof kale oo la sugayo ama cid kale oo la sugayo ma jirto waxa jirta xataa wafdi dowladda federaalka Soomaaliya ka socdo oo lagu casumay inay shirkani ka soo qayb noqdaan ayaga laftirkooda intooda badan waxaan filaynaa inay gaari doonaan maanta shirkuna waxaa la filayaa inuu berita furmi doono marka maamulka Soomaaliland waa arinta markaasi ciidamada aad ku tira badan ay u soo dhaweeyeen duleedka magaalada Laascaanood sifa gabi ahaanba ay uga hortagaan cid kasta oo galaangal ku leh shirkaasi oo dabcan ay ka cabsi qabaan in maamulka Puntland laftirkooda ay ka soo qayb galaan mas'uuliyiin ka socdo dhanka dowladda federaalka Soomaaliya laftirkooda ay mas'uuliyiin ka socda ay ka soo qayb galaan ayagoo arintaas ka duulaya ay ciidamadan maanta soo dhaweeyeen duleedka magaalada Laascaanood dhanka kale jabhado cusub oo ka soo horjeeda maamulka Somaliland ayaa looga dhawaaqay gobolka Awdal jabhadan oo lagu magacaabo Cawaale ayaa soo bandhigtay cudud ciidan iyo sidoo kale fariimaha jabhada oo ay soo dirtay maamulka Muuse Biixi maxay kula tahay uu ku dambeyn doonaa mustaqbalka maamulka Somaliland iyo sidoo kale maxay yihiin jabhadan cusub ee lagu dhawaaqay adoo noo faafaynay horta ila soo jabhadani maaha jabhad cusub oo haatan lagu dhawaaqay dib ayaa loo howlgeliyay jabhadan hore ay u jiri jirtay xilligii Cabdi Maxamed Cumar madaxweynihii hore dowladda deegaanka Soomaalida iyo madaxweynihii maamulka Somaliland xilligaasi ayaana iska kaashaday sidii jabhadan gabi ahaanba loo jimi lahaa awoodoodana loo weeqi lahaa jabhadan horta waa jabhad ka awood badan markii la fiiriyo tayo ahaan ama cudud ahaan ciidan ama dhinac dhaqaale labaduba markii la fiiriyo way ka awood badan tahay jabhadahan SSC iyo waliba sidoo kale kacdoonadan ka curtay gobolada SSC Muuse Biixina way ooga culays badan tahay jabhadan Cawaale jabhadaha kale ka jiro maamulka Somaliland dabcan jabhada kale to ayaa ka jiro oo labaduba aan ahayn Cawaalana aan ahayn sidoo kalena jabhadan ACC na aan ahayn waxa jira jabhada kale to oo ayagana lagu dhawaaqay sidoo kale tan dagaal la gal doono Muuse Biixi maamulka Somaliland wuxuu noqday tusbax furtay mana jirto hal deegaan oo maanta la dhihi karo ama hal gobol oo la dhihi karo Muuse Biixi ayaa si toos ah maanta gacanta ugu hayo oo maamulka Somaliland ay shacabka iyo mas'uuliyiinta iyo ganacsatada halka jooga ay raalli ku yihiin maanta lama jirto hal deegaan xataa hal degmo lama dhihi karo sababtoo waxaad ka arkataa in deegaanadii 6 gobol ee maamulka Somaliland ay ka koobnayd in gabi ahaanba gacanta ka baxday marka laga reebo magaalada Hargeysa oo iyada laftirkeeda maanta la circirayso mowjado siyaasadeed oo markaasi Muuse Biixi ku eedeynayo in Somaliland oo idil oo iswadato oo shacab iyo mas'uuliyiin iyo dawladba u midaysan uu la wareegay sidoo kalena maanta uu gabi ahaanba lumiyay 3 gobol ilaa 4 gobol oo kamid ah inta kaleetana ay maanta la circirayaan culayso iyo waliba tabashooyin ay ka qabaan maamulkiisa waxay ina sheegeen mucaaradka maamulka Somaliland in ay Somaliland burburtay isla markaana ay ku burburtay gacanta Muuse Biixi arintaasi maxaa ka jira dabcan waa badartaaba Muuse Biixi wadan nabada xuduud leh sidoo kale tan wada hadal u socdo dowladda federaalka Soomaaliya ayuu la wareegay oo la filayay waliba gorgortan ay kula jireen in maamulka Somaliland xataa haday dowladda federaalka Soomaaliya ka mid noqonayaan ay qaataan caasimada ama madaxweynaha ama yaani waxyaabo la mid ay qaataan oo ku gorgortamayo ayay ahayn laakiin maanta waxay la gorgortamaan ma jirtaba dhamaanba gobolada ACC way isdhiibeen oo waxay noqdeen Khaatumo State Awdal State waa lagu dhawaaqay oo Cawaale ayaa ka babanaya jabhada Cawaale ayaana gacanta ku haysta inta badan deegaanadaasi dhanka kaleeto deegaanadii asaga uu ku abtirsanayay qabiil ahaan uu ka soo jeeday laftirkooda maanta waxaan ognahay in habar jecel ku dhawaaqday in gabi ahaanba habar awal ay hooy simaanayeen sidoo kalena ay gabi ahaanba ka go'ayaan ama ay dhulkoodaba la wareegayaan markaad fiiriso mowjadahan kacsan ee Somaliland ka jiro dhamaanba waxay ka dhaltay nidaamka military ee Muuse Biixi uu ku hogaaminayay 4 sano ilaa 5 sano ee wadanka uu hogaaminayay si kastaba xaaladan waxaad moodayada laftirkeeda inay dab ku sii shidayaan quwado kaleeto oo ay ka mid tahay Ethiopia iyo waliba sidoo kale wadanka Djibouti oo iyaga laftirkooda ciidamo aad u tira badan oo gumaad iyo xasuuq ka waday gobolada ACC laftirkooda ay ayagana halka ka joogeen marka xaaladan waxaad moodaa in siyaasiyiin aan dan ka lahayn masiirka maamulka Somaliland in ayaga laftirkooda ay lu kulahayn xiisadan xooggan taa ayaana dhalisay baa la dhihi karaa inay maanta dhibaato xooggan ay ka taagnaato maamulka Muuse Biixi muxuu ku dambeyn doonaa bay kula tahay mustaqbalka maamulka Somaliland dabcan goboladan haatan Awdal State haatan lagu dhawaaqay ayagu waxay ku dambeyn doonaan in gabi ahaanba ay inta kale Muuse Biixi u soo hadhay ay ayaga
ay isla noqdaan state gaara sidoo kalena hoos imaada dowladda federaalka Soomaaliya khaatuma wayba tagtay iyada wax laga sheego maanta ma jirto aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaal intaasaan kusoo koobaynaa barnaamijka koobnaa inay ku falanqeynayna xaaladihii u dambeeyey ee Soomaaliya gaar ahaan xiisadda ka taagan magaalada Laascaanood wixii ka soo kordha waxaad ku maqli doontaan wararkeena dambe balse kan kiisa xiga intaan halkan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo